السلام عليكم. إن بدن أو إذا كم يدا واحد اسمه ديسان أما أدمقشان جنّي عشقة أما جنّي عاشقة. هذا بجنّي عاشق محاواية. ما لقيه بجنّي عاشق إن أوكهايو. إن بدن أو إذا كم يدا مركز أوتكتان قارئ أما راقي قرآن إذا صاروا وأد أشيكتان إن جورك علاس وإذا كسرية هاي وحو إذا شيء إن جن عاشق جركينا وكجرو رون يبان وحي أهاتبا ويا بنتهاي جن عاشق ومحاهي أديقو حاتاي إنسي جننا وجني محا اسكوكي كيني علاقة إذن دح ماري كرتا أديقا إيه جن عاشق محيطاي سيدو جن بشر أجعلان كرا إنسان سيدو جن أجعلان كرا صورة كلمتهاي مخلوقان آنن أركين أنيقا إيه آنن إيموكانين سيدو أنيقا إيه جعلان كرا أنيقو سي waxaan arkoon jeclaadaan rabaaye ma jaceelka ma hal dhinac oo kaliya ma isaga dhinaciisa oo kaliya anigu se muxuu ii xayirayaa muxuu iiga xayirayaa dadka aniga ila midka ah haddii aan shukaansado haddii aan gursado muxuu ii xayirayaa waa su'aalo aad isweydiin karto jawaabuhuna waa wax macquul ah oo dhici karo jinniga caashiqa ah waa wax jiro haddaba حلقتها صوص صعود لقى بالله ما أنت أي قادم دون تبا وحين كوك فلانقين دونا أو أي نكوك لا دقيق دونا جنية عاشقة وحلو يقانو سبب تقفك وأجري كرو محو كي ماذا محل يستجد ويا إيه وحي الله متك أهدن أيام كبران دونا حلقتها هي حلقتها صوص صعود إن شاء الله جن عاشق محاهد الجن العاشق ومن أخطر أنواع الجن جنّي النوعيسة متك غدرا واي وانا متك مسيرك بدني أقوم جن عاشقة وانا متك مسيرك بدن وانا متك هدي قفك أوغلو أنا كبحين جلتي سكون من تلايا واي أوكي أسباب تمركة كيني كلا جنّي جاني إنه gabdhaha ama wiilasha jirkooda uu galo oo uu ku dheemo maxaa kamid kow in gabadhu ay marada ama cawrada ay iska feedo gurigeeda iyada oo joogto iyada oo aanan xusin digriga ilaahay gabadha way joogi kartaa gurigeeda iyada oo qaawan iyada oo dhar khafiif ah wadato iska fadhiisan kartaa garbisaarka iska dhigi kartaa jirkeeda bar kamid ah feednaan karo qaar kamid ah dadnaan karo ceeb ma ahan dhibna ma ahan laakiin dhibta iyo problemtu waxay ka taagan tahay marka aad garbasaarka iyo jalbaabka aad iska dhigayso bismillaahi ma ku dhigtay mise ma ku dhigin taas waa su'aasha meesha ka taagan meesha kaliya ee la isku haysto intaas waaye kow haddii maradan aad dhigto adiga oo aanan dikriga ilaahay aanan xusin shaytaanka indhihiisa iskama aadan asturin waa uu ku fiirsanayaa waa uu ku arkayaa laga yaabaa inuu kaa helo inaad leedahay ku fiican timo qurxoon laab qurux badan inaad leedahay dhax wanaagsan inaad leedahay laga yaabaa shaytaankane uu sidaasi kugu jeclaado markaasna uu sidaasi uu adiga dhanba uu ku hanto oo uu ku milkiyo arkaysa ma kala sooceyno inaad dharka dhan iska wada bixiso oo guriga aad iska dhigto adigoo guriga kaligaa jooga waaye ogow ama inaad mataqaanaaye dhar khafiifa aad xirato ma kala sooceyno labadaba ma kala sooceyno waa isku mid waaye sidoo kale inaad ku seexataa la mid ah dhar khafiif ah adiga oo aanan ilaahay aanan xusin digriga ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga oo aanan xusin si marka mar walbo يعني waxa kala qarin karo indhaha jinka iyo adiga cooradaada waa maxay dhikrullah ilaahay dhigrigiisa waa subhanahu wa ta'ala idan marka mar walbo markaad seexanayso guriga markaad kaliya joogto dharka iska dhig ma xuma laakiin waa inaad ku dhigtaa maxay bismillah dhigriga ilaahay waa inaad ku dhigtaa waxa soo kala labeynaya waxa waaye musqusha marka la galayo waxa loo galo waa saddex shay ama kaadiya loo galaa ama saxara loo galaa ama qabeesa loo galaa saddexdabane marka la iska dhigaa waa la isqafiifiyaa طبعا sida ay noogsoonahay xamaamka ama musqushu waa guriga jinka iyo shayaatiinta haddaad adiga marka gurigoodiiba aad ugu tagtay adiga oo aanan bismillaahi allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal khaba'ith adiga oo aanan dhihin haddii aad gurigoodii aad ugu gasho dee iyaga oo badan ay kugu soo shamuumayeen saas ku soo wada fiirinayaan ma oho adigana adkaartii iyo ducadii ma aadan akhrisanin
وقبيستاني مركاسي كفضاعنايا ee ku fiirsanayaan kugu mashquulayaan ku jeclaanayaan halkaasina ka soo raaci karaan idan maxaa loo baahan yahay marka musqusha markii la galaayana in la xuso waaye digriga ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa soo saddexeeyo waxaa soo saddexeeyo ninka marka uu u tagayo xaaskiisa haddaanu bismillaahi allaahuma jannibna shaydaana wajannibi shaydaana maa rasaqtana aanu dhihin waxaa la sheegaa in shaydaanka xubinka taranka ninka uu inta isku duuduuba sidii maskii jibisadii oo kale ayuu wuxuu galayaa meesha uu gala ninkuu galayaa sidaasuu ninku galayaa gabadha almasu lcaashiq aljinnu lcaashiq isagana waa noocaas waaye arkaysa intaasi waa asbaabta ugu waaweyn ee ugu badan ee jinniga loo yaqaano aljinnu lcaashiq qof uu ku mutalabis uu ku noqon karo waaye طيب إذن مركا أنت سؤال لك مركا أو قال كدي أما وحالغيها مركا أو أركا كدي ما أهن أوكلية نين أوكلية ما أهن أوكلية نين جنيا إنه ناق إنسيا أو قال كلية ما أهن ناق جني نين إنسيا قال كرتي أو هذا أوكيلي كرتو سيدا رجو أي أوفيريان دمركا أي دمر كون رجو أوفيريان sida ay raggu ay uga helaan ee dumarkuna uga helaan idan marka labadaba waa suuragal way kala xoog badan yihiin laakiin waxa dhacaysa marka in marka uu ka helo kadib hore ma ka galaya isaga wuxuu kugu sameynayaa marka wax la yiraahdo dabagal raadraac oo ku raadraacaya jaanis uu kugu gaadaya okay marka uu ku raadraacayo oo ku daba dhiganayo goormuu ku gali karaa marka uu jirkaaga ee u fududahay inuu ku galo farxadda markay ka tambadiso koo xanaaqa markuu ka tambadiyo labo xilliyada tacajubka waxaa waaye inta miraayada aad isku fiiriso yaa salaam ma jirkaan oo kale naaga lahaa adduunka joogto maanta inaad tiraahdo oo aad adiga iscajabgeliso xilliyadaasoo kale uu dalaq ku leeyahay xilliyadaasoo kale waa xilliyada uu dalaq uu ku dhahayo waa marka uu ku galayo waxa waaye marka sixir ahaan uu ku galaya arkaysa aan dariiq sixir uu ku galaya sixir ahaan xasad ahaan uu ku galaya idan marka haddii mar uu ku galo jinnigaas way adag tahay jirka gabadha ama ninka uu galo sida looga bixin in lagu gubo oo lagu dhex gubo quraan inta lagu aqriyo lagu gubo bul meeshaas lagu shiilo isaga dhan oo lagu dhalaaliyo mooyaane way adag tahay si kale in uu ku baxo quraan adag in la saaro u baahan yahay waa hagaag marka waa noocan marka waxaa leedahay min akhtari anwaaci aljinni waa nooca jinka ugu dhibka badan waayo marka uu jeclaado gabadha marka ilaa waa jinni isaga ma arkaysee isaga le arkaayo iyada ma arkaysee muxuu ka damacsan yahay wuxuu ku sameynayaa fiiriya waynu qaadan doonaa waynu sheegi doonaa calaamadaha laakiin gabadha habeenkii uu riya ahaan ugu imaanaya maadaama oo waxan uu yahay jinni shaytaan uu yahay aanu awood aanu u lahayn inuu weji uu ugu yimaado ayuu wuxuu sameynayaa habeenkii marka ay seexato ayuu wuxuu ugu imaanayaa riya ahaan isagoo marka gabadhu waxay ku riyoonaysaa iyadoo galmada la sameynayo yaa galmada la sameynayo si aanay ugu adkeenin xitaa galmada wuxuu iska soo dhigayaa qof ay jeceshahay oo aanay waxba u diidi karin oo wax walbo haye aboowe ay dhahayso uu inta iska soo dhigo oo uu u yimaado saasuu dantiisa ugu dhammaysanayaa markuu ka dhammaystana iyadoo raalli ka oo aan la qasbin la xoogin ayuu mataqaanaaye inta ka dhammaysto ayuu ka tegayaa haddii gabar ay tahay oo kale wuxuu sameynayaa isagoo aroosayo ninka ay jeceshahay oo kale aroosayo oo kale rii inta oo u sawiro filim noocaas oo kale inta u jiro arooskii dhacay gacanta iska soo qabsadeen guriga soo wada galeen sariirta la imaaday dharkii la iska bixiyay hooshii qaranka la qabtay saasi ku qabsoomaysaa haddii ay tahay gabar la qabo xaas ahne ninkeeda ayuu inta iska soo dhigo ninkeeda meel u diidi kartaa oo inta iska soo dhigo oo sidaas uu galmoonayaa oo uu dantiisa ku dhameysanayaa laakiin gabadhan basharka ah insaanka ah
iyadu waxan waxay u arkaysaa riya ahaan laakiin isaga jinka shaytaanka ah waxani waxay u tahay run oo xaqiiqo ah oo ma ahan wax oo mala awaal ma ahan galmadaas uu sameeynooyo isaga xaqiiqo u sameeynoyaa istimtaacaas iyo wada raaxaysigaas isaga run u sameeynoyaa adiga basharka bani aadamka laakiin maadaama aanan toos aadan warkirin ayuu wuxuu kaaga dhigayaa wixii wax mala awaal ah oo riiriye amal ah khiyaali amal ah uu kaaga dhigayaa insha Allah waa gaagaabinayna ma iska badinayna mawduuca marka xalqada xigto xalqadan waxaan kaga hadlayaa calaamadaha qofka uu isku arki karo inuu jinni caashiq hayo iyo in kale muxuu ku garan karaa calaamadahaas ayaan xalqadan xalqada xigto kaga hadlaynaa insha Allah ka hor inta aanan u gudbin cilaajka iyo daweynta ina ka faa'iideysteen waa rajaynayaa channelka waa Rio TV anigu waa macallin Muuse muuqaalka inta aynu ku kulmeyno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.